habka gabdhaha la iskaga doonto habka gabdhaha loola macaamilo habka xalka ehelka loo bixiyo iyo adi waxyaalaha nooca marka ayada in ay imaato qabaa'ilada in ay kala maadaama aysan isku dhaqan ahayn ay farqiga u dhaxeeya darteed ehelkii hadday isku imaadaan ee dhibaato ka imaanayso soomaalida in ay meel fadhiisato weligeed soomaalima miyay wax ku raadisay mise weligeed islaamnimada unbaa u dhexaysay wada sheekaysay marka maxay noqotay mid in la yiraahdo nin qabiilkaas ka soo jeedaa ama aad qabiilkaasna bay lacag jecel yihiin ama dhacda marka marxaladu wuxuu xilliga qaar waxa la kulanaa ama wax bulshada ka dhaco in qof lagu qeexo qabiilku ka soo jeedo oo qiimihiisa isaga la fiiriyo isaga la fiiriyo qiimihiisa soo kale qabiil waxa jiro in isguursanin يعني دم ربع أما جودن مسكوي مادان يا which means يعني قبل كان ده جورستو حسا كلو كل ميز أما ودد نوعاسي marka waa saameyn jirto dhan walbana taawatay guurka ganacsiga iyo shakhsiyadii qofka oo matalayo qabiilkiisa haddii ataas ka hadlo aad jeclaan lahaa inaan ka hadlo oo aniga sina aan ku yara taageersanahay ma taageersani laakiin aan fikradda aan ka qabo hadda Soomaalida waa isla wada nooshahay waxaa laga yaabaa awal wadankeeni ama inta uusan gumeysiga imaanin ama gumeysi markuu imaaday kadib oo qaxan iyo waxaan aysan dhicin gobolada in qabaa'il loo kala degnaa oo gobol walba qabiilka uu degan yahay gobol walba qabiil uu degan yahay xeerarka qabaa'iladana ay kala duwan yihiin ama habka ay dabcan wada dhaqmaan nima waxaa jiro ku dhahayo geelkii salaada hadday imaato geelka daran waa gabay jira hadee oo waa gabayaan ah aldhuux aadan la dhaho waa nin aftahan sayd ah markii oo gabayada uu bixinayo kale yaani qabaa'ilada markay kala meel duwan yihiin iyo marka wuxuu u muuqata markii ayada ah deegaanada la kala degnaa in dhaqamada ay kala duwanaayeen sax oo dabcan qofka geeska Soomaali geeskeeda ka imaado iyo qofka Soomaali geeskeedan kale ka imaado ma hadda gobolada iyo wax ma magacaabayo aysan isku dhaqan ahayn habka gabdhaha la iskaga doonto habka gabdhaha loola macaamilo habka xalka ehelka loo bixiyo iyo adi waxyaalaha nooca marka ayada in ay imaato qabaa'ilada in ay kala maadaama aysan isku dhaqan ahayn ay farqiga u dhaxeeya darteed ehelkii hadday isku imaadaan ee dhibaato ka imaanayso ama macaamiisha qabaa'ilada markay isdagaalaan waxaa jirta hab ay u kala gogol dhigtaan waxaa lagu yaqaanaa qabaa'ilada xalka ay ku kala qaataan iyo magtooda iyo oofinta ballamahooda iyo in ay taas ku kala duwanaayeen marka ayada ah way qumaneed waa isleeyahay oo ma ahan in qabiilka lagu yasaayo laakiin maadaama adiga lagu dhaho ninkan deegaan hebel ayuu kasoo jeedaa aad ogtahay habkay u dhaqmaan oo aad ogtahay haddii uu walaashii aroso ama gabadhtooda aroso waxa aan ka filan lahaa iyo waxyaalaha marka ayada ah waxaan isleeyahay yara caadi ay ahayd laakiin maadaama wadankii uu nabad noqday ama wadankii marka ayada uu casriyoobay oo Muqdisho iyo maxaa la dhahaa wadankii la isku dhex socon jiray iyo khaasatan markii la soo qaxay ummadii ayadoo isdagaalaysa isla soo qaxisay ciidankii waxaa waay maadaama ciidanka iyo bulshada ay kala duwan yihiin ama dowladda marka ay geysatay shacabkiina inay isla wada qaxayeen ayagoo qabaa'ilo kala duwan ah ay isku dhex noolaayeen oo qaxootiyadan Kakuma iyo Dadaab iyo Utangame la dhihi jiro hadda in la xiro Amarina Mombasa aga hela in dadkii marka isla noolaadeen is arooseen ay dhaqankii maadaama dhaqankii lagu sheegay uu yahay deegaanka ayada dadkii isku wada dhaqan noqdeen marka taa ayada marka ayada way yar qumaneed laakiin hadda maadaama dadkii isku wada dhaqan yihiin in duwanaan doonto habkii qabiilka loo dhaqmaayo dabcan haddii oo la fahmi karo ama kamid ah fikradaha uu gumeysiga nugu reebana waxa waaye fikradahan qabaa'ilka waa fikrado na lagu beeray ama ha noqoto qaab siyaasadeed ama ha noqoto qaab dhaqameed ama ha noqoto qaab deegaaneed ida marka Japanisku waagi hore waxay sameeyeen jireen waxay aaminsanayeen kaliya qofka Japaniiska kaliya haddii uu qof yimaado oo wadankii xitaa asagoo faa'iido wadanka u wado meesan qaabili jireen laana wadankiina kama tirsanin dadkeena kama tirsanin mana soo geli kartid waxna musku niman karno khadid noocaasi aaminsanayeen wayna ku guuleysteen maanta Japanku waxa waaye wadanka kaliya aan lahayn homeless ama dad darbiyada jiifo aan lahayn wadanka kaliya caalamka which means waa dad ayagu is dhisay istarbiyay horumarna sameeyay ay kaliya isku kalsoonaaday tusaale waxa soo qaatay Japan iyo farqi aan islaam u dhaxaya Japan iyo Soomaalida Japan waxay ku tashatay yaa Japan ah laakiin jilib bayna soo qaybineen qabadeen marka taas way malihin maxaa naga dhaxeeya maxaa ina madeeyo malihin qolo kasta waxaan leenahay
okay difaac bay ku Teeni. jirtaa Teeni. maxaa naga danno ah Mhm. haddii xal la raadiyo maxaa xal ku jira maxaan samayn karnaa su-aalaan raba inaan ku weydiiyo ani expert ma ihi maya yacni maya su-aal ay igu soo dhacday sax Eh, soomaalida in ay meel fadhiisato weligeed soomaalnimo miyay wax ku raadisay mise weligeed Talakaas. islaamnimada unbaa udhexaysay may qaran waa gooni markii soomaaliya la dhisayay koonfurna gooni ay u raadsanaysay waqooyina gooni ay u raadsanaysay jabuutina gooni ay u raadsanaysay laakiin qof walba markuu xorriyaddu uu qaatay waqtiguu qaatay unbaa la isku yimid sax soo maaha Sax. soomaaliyana gees u raadsatay Waa midoobay, Ko- midoogii ha, la sameeyey. waa la midoobay laakiin markii la raadinayay ayadoo markaa laga hami leeyahay in soomaali mar uun isku keeno Sax. laakiin ayada ah markii la raadinayay ama se cabdilla xasan markuu dagaalamayay ama SYL markii Aas-aaskii. ay aas-aasmaysay ama ay xorriyadda raadinaysay mid walba geeskiisu wax ka raadinaya asagoo dabcan ka raja leh in uu maalin un ay dhacdo uu saa'id ugu hamin jiray saa'id ugu hamin jiray sayid cabdilla xasan inuu soomaali midooda inay macnaha soomaali midoodo laakiin ayada markaa ah ay joogto weligeed uma malaynaya in ay dhacday odayaala soomaalida inay meel fadhiisatay ee soomaalnima oo maxaa anaga soomaalida maxaa noo dan ah haa marka waxaa un islaamnimada wax ka sokow soomaalimada uma malaynaya waxa isku Uma keli raadsaday. jirta bas waxaa xasuustaa siyaad barre ilaah u naxariisto waddanka abaaro badan ka dhacay marka soomaalida haddaan nahay kudi sunniyaan nahay 100% islaam sunni ah iiraan timid taariikhda ma sixi karo ma dhigi karo waa xaqiiq oo meesha laga raadiyo laakiin inta la iga soo wariyey ama inta ka dhageystay siyaad barra waxaa u yimideen niman iiraaniina iiraaniyiin oo shiica ah waxay dhaheen annagaa hantini siinayno annagaa gaajada naga bixinayno xiriirkeena nala adkeeya noo ogolaadana in aan Mowqifka. macahadiye islaami ah Sax. macahadiye diini ah aan waddanka ka furno marka wuxuu u yeeray nimankii golaha sare sax oo markaa xildhibaanada ama wasiiradiisa asaga Sax. golaha sare la dhihi jiray wuxuu yidhi war nimanyaho maxaa tala ah say nila muuqataa marka waxay niman ka mid ah waxay dhaheen loo qaadna cagta gaajada iskaga bixinayna aniyaho nimankan sax wuxuu yidhi soomaali maxamed qabiila ugu taag la ahay sax yacni annagoo oo intan 10 sano dhisan aan qabiilna iskaga dhiganaa annagoo qabiilna loo keenay oo kala shiicana loo keenay shiica iyo sunniya u kala baxnay Sax. yaana kala celin annaga iska dhiganay marka taas waxay tusinaysaa waqtiga ayada ahba in ay saameyn Jirtay, qabiil jirtay qabiil jirta ta koowaad talabaadna markii la gogosanayay oo axsaabta la goosanayay oo xurriyad ma dhahayo laakiin markii laga goosanayay ama lala dagaalamayay dowladda gumaysiga ma aha waqtiga siyaad barre dowladdiis markii la dagaalamayay wax soomaalinimo ku dagaalamo ma laha yacni reebel dagaalamay ha inkastoo soomaali ay ka xishoonaysa inay sheegto ama laga yaabo in lagu dhaliilo laakiin saasa xaqiiq ah SNM markii ay xurriyadda bilowday iyo SSDF isku waqti ma aha iskuna danam ay u bilaabin ragga bilaabana isku mid maysan ahayn markii USC timaaday ay timaaday maxaa la dhahaayay SBM ay timaaday mid walba waqti gooniya timid dano gooniya timid cabasho gooniya u timid qof soomaalinimo markaa wax ku raadinaya ma jirin qof walba mid walba magaca soomaaliya u raacsanaa laakiin dana gooni ah yani SNM Somali National qof walba wuxuu isku aaminsan inuu asaga xorriyadoon yahay ama uu asaga markaa la dagaalamayo awoodda dowladnimada markaa jirtay laakiin qof walba uu qabiil ku raadinayo wixiisa waxa markaa jimcinay oo kulminaya ma jirin waxaan u malaya marka koowaad ay soomaali wax ku kulantay maxaakiimta markay ahayd ee ugu dhowdaha isleeyahay ma hubi ma garanayay laakiin marka ugu dhawaad oo aad isleedahay dabcan soomaalinimo soomaali wax ku raadsanaysay marka su-aashaas wada waxay tahay weligan taariikhdeena soomaalida ama weligan soomaalinimo wax ku raadsanay waa may soo maaha yacni annagoo qabaa'il wax ku raadsanayna haddana isku ag nooleen isla nooleen wax wada qabsan jirnay wax kala qabsan jirnay isdiriri jirnay heshiin jirnay kala guursan jirnay ayadoo saas waa isla wada nooleen wax la isdiriraay maysan jirin marka maxaa isleedahay keeni kartaa cadaawaddan khaaska hadda haddii aan mid ku darsado waxa weeyaan waagi hore qof dhalinyaro ah in uu yani berigiisa bulshada uu kusoo bandhigay qabiilka u yahay waxooga ceebba yare ahayd sax laakiin waayadan way ku faana dhalinyaradu in siyaataskooda ay saartaan ama tiktokooda ama barahooda bulshada ay kusoo bandhigaan qabiilkaas inay yihiin walow xitaa muuqaal iska soo duwaan fariin keliya ma ahan which means yani qadiyadii qabiilnimadu way nagu soo waxaa raba marka inaan weydiyo su-aasha ah maxaa keenay halkaga wada dhalinyaradu marka intooda badan fikir ahaan qabiilku wuu saameeyey haddana way yani saameyntu way kusii ballaaranaysaa
waxay noqotay qofku inuusan mar walba qabiilkiisa ku faano mar walba qabiilkiisa uu yani soo sheegareeyo uu raadsado ama uu taageero baraha bulshada wax kusoo gudbiyo dad ay asaga isku qabiil yihiin which means saameyntu way ballaaratay ma garatay waayadan dambe hadda arrintaas way xalismatay laakiin waagi hore TikTok waxaa la ciyaari jiray game life صح waxaa lagu ciyaari jiray waa qabiil waxaad arkaysaa laba qof oo baraha bulshada caanka ah dad badan ku xiran yani wuxuu mathalayaa qabiil hebel kana qabiil hebel game ciyaarayna waxay samaysanayaan shout out yani dhowr usbuuc ka hor ama maalmo ka hor si xiisintaas meelo kala duwan u gasho dadkana u taageeraan marka waxay noqotay meel ganacsi ama la isku cayn jiray marka mise wala isku ciin jiray marka la isku ciin jiray okay marka la isku ciin jiray laakiin yani ma ahan inaad qabiilkaada ku soo faanto baraha bulshada soo dhigato waa wax wanaagsan balse which means dadkina aad ku cayso qabiilkaad ku leedahay aan inay wanaagsan tahay umaleynaa inaad ku faanto xataa يعني inaad dadka isku soo dhax saarto oo calankaada ma wanaagsano hadii si loo eegno way wanaagsan tahay laakiin dadkani soo bandhigaya dadka soo bandhigaysa waa kala duwan yaa cuqdada dadka ku dadka aawraya soo bandhigaysa oo Soomaali maxamed labadin saaxiibaha ani kala guuraya adiga ayaa ninkan qabiilkan iyo kan qabiilkan taageer kan qabiilkan taageeraya waa aragtay inaan ku jiro anaa ku arkin ku jirto waan ku kala guuranaa marka meesha waxa ka imaanaya wuu kala guuranaya marka su'aashan weydiinaya tan ah su'aash marka hal mar dhamaysto shaqeeyadu inta badan halkii ku mashquul lahaayeen qabiil iyo qabyaalad waxa muhiim ah inay ku mashquulaan noloshooda leena maanta mustaqbal ana ma lahin boqolkiiba 90 dhalinyaradu mustaqbal ma lahan wax mustaqbal u sameeyana ma lahan leena aabayaasheen mustaqbal ma noo sameeyeen sax aniga marka caruurta dhowrka aan ku wadano inaan mustaqbal u sameeynaa